السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن wanaagsan daawada meel walba aad naga daawanayso ku soo dhaw sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood qaybteedii shanaad. qaybta afaraad sheekada waxay inoo joogtay aad ay amuurtaas odayaashii u saameysay kadib markii si wanaagsan looga waramay. qaybta shanaad sheekada waxay ku bilaabmaysaa waa suge oo tallaabadaas afka Soomaaliga laga qaaday ka faaloonaya ayaa saaxiibkiis ku yiri warsamow allaylehe reer magaalkii waxay af shisheeye ku dhaqmaanba hadda ayay runtii u soo degeen waxaana sideedaba la yiri ama huraan waa cawska jiilaal. warsame ayaa wuxuu yiri waa sugow afka carabiga ma waxaad raacisay afafkii shisheeyaha mise waad ka reebtay. waa suge ma waxa iskaga kaadarsan shisheeyaha iyo sukeeyaha carabta iyo Soomaalida ayuu asagu u arkaya labada oo ay isu keeneen diin iyo dhaqamo kala shidaal qaato oo kaliya. warsame inkastoo aan ku afgaranayo haddana waxaan carabta la wadaagnaa wax ayn bir aysan jari karin biyana mayri karin wuxuu aad u qiimeynayaa oo kala faquuq u diidayaa dhaqanka diiniga ah ee xidideystay iyo isdhexgalka labada dal. cabaar ayay labadii oday ku murmayeen afka carabiga shisheeynimada ka daa iyo ka dayn maayo ayaga oo aan isla meel dhigin ayuuna warsame dhex galay faalo kale oo ku saabsan banaanbaxa. si weyn ayuuna warsame ujeedada banaanbaxa u dhuuxay ulana dhacay laakiin markuu ogaaday in dadka faraha badan oo u soo baxay farxad muujin lagu ayidayo qoridda afka Soomaaliga ayay dib ula soo xumaatay jawaab oo wiil yar siiyay mar ay odayaashii weydiiyeen sababta dadka isku keentay. wiilka wuxuu odayaasha ku yiri dadkan waxa isku keenay waxba kama gashaan mana garan kartaan wuuna iska dhaqaaqay. warsamo waxay leeyahay inaan marna looga maarmi karin talo iyo tallaabo afka Soomaaliga ku saabsan aad ayuuna wiilkii ugu carooday. duqa wuxuu amuurtaas ku xasuustay gabaygii diini guray oo ahaa afku waalid buu leeyahay odayo waaweyne waxay ururinayeen halkiyo aabihii dhalaye abaartiisa kama leexinin waa ebiyeen shalaye irankiisa hoosii gunta laga abuuraye ur iyo qaylo kuma fiicna iyo kaana iriye. waa suge iyo warsame ayaga ayaa isku dambeeyey dadkii baabuurka ka degay intay kala tegin waxay isu sheegeen danta oo mid walba magaalada u yimid dadka u jooga iyo meesha laga helo isbarasho xiise leh ayaa dhex martay labadii oday waxayna kala tageen ayagoo isleh ilaahay mar kale hana kulansiiyo. sidaas ayayna ku kala dhaqaaqeen wuxuuna mid walba markaas bilaabay inuu tiigsado halkii ay deganaayeen reerihii oo u soo muraaday. warsame wuxuu u soo danaystay walaalkiis oo ahaa laba xidigla ka tirsan xoogga dalka lana yiraahdo dirir wuxuuna habeenkaas u marti ahaa reer aqoon iyo dhaylo ka dhexaysay si uu ugu tilmaan qaato. subaxdii dambe ayuu u jarmaaday dugsiga tababarka xalane oo tilmaam lagu siiyey in walaalkiis ka shaqeeyo. wuxuu ku beegmay goor subax ah oo wax la kala agaasimayo askartii ilinka ilaalinaysay ayaa markaa warsame u sheegtay dantuu meesha ka lahaa waxay taleefan u direen dirir duqiina kursi u dhigeen. intii uu dirir sugayay waxyaalo badan ayuu warsame halka ku arkay. wuxuu arkay askar rag iyo dumar leh oo koox koox loo ciyaarsiinayo. wuxuu arkay saraakiil si habsan u libisan oo sida ay u kala sareeyaan u kala salaan qaadanaya. wuxuu markii ugu horeysay dhagihiisii ku maqlay af Soomaali la isku gaardisiinayo inkastoo oo maqal hore ka haystay wuxuu kaloo halkaas ka faa'iideystay lana dhacay markii loo sheegay in ciidamada la gaardisiinayo ay ka kooban yihiin askar caadi ah iyo shaqaale loo tababarayo ujeedooyin kala duwan oo waxtar u leh daafaca iyo horumarinta dalka intaba. kala xukun qaadashada iyo guud ahaan nidaamka meesha ka socda wuxuu warsamo maalintaas ku xasuustay beydad ka mid ah gabaygii xaaji aadan axmed afqalooc oo ahaa intaasi waxay noogu dhammaaday qaybtii shanaad ee sheekadii waa suge iyo warsame socdaalkii 30 maalmood.